warbaahinta dalka Azerbaijan iyo Armenia ayaa sheegaya in xiisad cusub ka dhalatay gobolka Nagorno-Karabakh xiisadaas oo sababtay in rasaas la isdhaafsado halkaasna ay ka dhacdo dhimasho iyo dhaawac labada dhanba ah. wasiirka difaaca ee Azerbaijan ayaa sheegay in weerar gaadmo ah lagu soo qaaday askar ka tirsan ciidamada u jooga gobolka Nagorno-Karabakh. weerarkaas oo hal askari lagu dilay halka mid kale lagu dhaawacay ayaa xiisada Nagorno-Karabakh ka dhigaysa mid cirka isku shareer. Azerbaijan ayaa sheegtay in weerarkan ka dhacay degmada Khoshaven halkaas oo ay iyaguna ku dileen 6 ka mid ah raggii soo weeraray sida ay sheegeen. wasiirka difaaca ee Azerbaijan ayaa wacad ku maray in ay si adag uga jawaabi doonaan weerarkan. hadalka wasiirka ayaa daba socday qoraal ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Armenia kaas oo lagu sheegay in dagaal ka socdo degmada Hadrut oo iyaduna ka duwan tii ay Azerbaijan sheegtay, iyagoo ku daray in ay si adag u ilaalinayaan nabadii ay la qaateen Azerbaijan. marka qoraaladaas laga tago ma jiraan wax hadal ah oo ilaa hadda ka soo yeedhay labada dhinac. gobolka Nagorno-Karabakh oo ay Armenia dagaal kula wareegtay 1994 ayay Azerbaijan mar kale kula soo wareegtay dagaal loo yaqaano dagaalkii 44 maalmood ama 44 day war kaas oo Armenia si xun loogu jabiyay ayay xukuumadda ra'iisul wasaare Bashian khasab ku noqotay in uu nabad la qaato xukuumadda Baku. ruushka ayaa damaanad qaaday labada dhan nabadda ay kala saxeexdeen isagoo u soo diray 2,000 oo askartiisa ah halka Turkiguna u soo diray kuwa boqolaal ah oo dhinaca farsamada iyo dibudejinta ku saabsan. hore Turkiga iyo ruushka ayaa Armenia uga digay in ay colaadda dib isugu soo furaan taas oo keenaysa bay dhaheen in caasimadda Yerevan lagu murmi doono. wasiirka difaaca ee Azerbaijan oo wacad ku maray in uu jawaab adag ka bixin doonaan weerarkan ayaa la qabeen iyo qaboojin loogu maqan yahay isagoo madaxweynaha ruushka Vladimir Putin uu ergo degdeg ah u soo diray gobolka Nagorno-Karabakh. wixii ka soo kordha kala soco Alool Media.